nacashka maalinta lagu saaro wuxuu ku lewsiin doonaa faraskaagii iyo gaadhigii laanguruusarkii iyo sariirihii qaaliga ahaa aad ku raaxaysanaysay baad ku iloobi doontaa yowma alqiyaamati laa maalun walaa waladun maalinta qiyaamahana kii maal badan lahaa maalkiisu anfici maayo kii qabiil laandheeraha ka dhashay qabiilkiisu anfici maayo kii awlaad badan lahaa awlaaddiisu anfici mayso wadammatu lqabri tusi leylata alcursi mar allii marka qofka qabriga la dhiga buu rasuulku noo sheegay xadiis kale qabrigu sidaa buu iskugu yimaadaa deedna feedhaha qofka ayaa sidaa isku dhaafa haddii qabriga isku yimaadkiisa nin ka badbaadi lahaa buu nebigu yidhi sacad binu mucaad baa ka badbaadi lahaa buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam atadruuna man huwa sacad waa ninkii geeridiisa maalintuu adduunyada ka intiqaalay carshiga raxmaanku u gariiray faraxan liquduumihi imaadku adduunyada ka tegey bixidda sacad maalintii adduunyada uu ka baxay ayaa ilaahay jalla wacalaa carshigiisa raxmaanka u dhaqaaqay farxad daraaddeed jibriil baa soo dhaadhaco nebiga u sheegay oo yidhi nin asxaabtaada ka mid a ayaa go'ay oo ahlu samuhuna ay ku bishaaraysanayaan imaadku adduunyadii ka yimiday markaa buu nebigu sara kuxuu yidhi yaa jibriil sacad binu mucaad baan u malayn buuhi inuu go'ay deedna uu soo degdegay nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaa saxaabada rasuulka kabihii ay gashaneen ay ka go'een markaasay nebiga soo gaadheen markaasay idhaha yaa rasuul allah socodka waa nagu daalisee markaa buu nebigu yidhi haa waa nigu daaliyey sidii xandalo malaa'igtu ay ugu maydhay inay sacadna hortay u maydho ayaa ka cabsoonayo inaan sacad gacantayda ku maydhan u soo degdegayay buu rasuulku waxauna jibriil ii sheegay buu yidhi carshiga raxmaanku faraxan isagoo ku faraxsan imaadka sacadu adduunyadii ka yimiday inuu carshiga raxmaanku u gariiray ayuu jibriil ii sheegay buu rasuulku markii janaasadii la soo saaray la qaaday bay munaafiqiintu yidhaahdeen maydkan fududa markaasuu nebigu yidhi ha odhanina sidaa war ma haysaan idinkuye 70,000 oo malag ayaa maanta arlada u soo daadegay maanta ka horna malaa'igtaasi arlada maynan iman sacad binu mucaad janaasadiisa ka soo qayb galana weynina sidaa buu rasuulku markii qabriga la dhigana nebigu wuxuu leeyahay qabriga isku imaadkiisa haddii shakhsi ka badbaadi lahaa sacad binu mucaad baa ka badbaadi lahaa buu rasuulku yidhi wadammatu lqabri tunsi leylata alcursi habeenka u horraysay zafaafka waa habeen taariikhda ku qoran weeyaan habeenka u horraysay nin kastoo dhallinyaraa uu gabadhiisa zawjadiisa xalaasha uu la aqalgale iskugu horreeyeen habeenkaa waa habeen taariikhiya weyn lama iloobo laakiin isku imaadka qabrigu isku imanaya marka u horraysa lagu dhigo habeenkaasaa lagu halmaamaa buhi ninka shaacirku aaway shucuurtaa iyo dareenkaasi maanta